Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta meel walba joogtaan waa idin salaamay. Maanta maxaa idin soo wadaa video ah sida shaashada idinkaga muuqata waxaa arkaysaan Turkey scholarship asxaab fara badan oo su'aalo fara badan isoo weydiiyey hal waa ugu jawaabi waaye. Waxaa jeclaysta marka video inaan u sameeyo videogaasna qof walba su'aasha uu weydiin lahaa jawaabtiisa meesha uu ka helo. Scholarship-ka wax aad u dhib badan maaha, steps-ka aad u fudud yihiin. Kaliya waxaa muhiim ah kulli dhammaan wax lagaaga baahan yahay documents-ka inay ku diyaarsan yihiin. Documents-ka hadduu ku diyaarsan yihiin maxaa waaye marka way kuu fududaanaysaa waxyaabaha lagaa rabo. Qofkana hadduu system-ka hadduuna gelin documents-ga laga rabo ma ogaan karo. Marka waxaa sameeyay documents-ka lagaa rabo dhan waxaan kusoo qoray Word waan ila share gareyn doonaa. Waxaa jirta criteria laga rabo qofka inuu ka soo baxo. Anima waxaan ka hadli doonaa kaliya qofka hadda masterka rabo inuu apply gareeyo. Criteria-da maxaa ka mid ah? Waxaa isla system-ka meeshan waan iga tusi karaa. Haddii kale criteria inaa ogaatid haddaa rabtid waxaa galaynaa Google-ka kadibna waxaa qoraysaa Turkish scholarship. Turkish scholarship markaa qortid website-ka inuu website-ka saxda uu yahay waxaa ku ogaanaysaa inuu yahay waaye gov.tr. Hadduusan ahayn meel ilaa wax ka buuxsanaysaa waaye. Markaa ku dhafatid meesha ani hadda daay arkaysiin aan joognaa. Criteria-da qofka waxyaabaha scholarship-ka laga rabo xitaa inta waxaad ka arki kartaa Twitter-kooda. Twitter-ka su'aalaha ardayda badan ay soo weydiiyaan waxyaabahaas oo dhan meeshaan aad ka heli kartaa. So application-ka meeshaan haddaad ku dhafatid criteria maxaa waaye marka qofka masterka da'diisa inay ka hooseyso 30. Waxaa kaloo muhiim ah percentage-ka oo jaamacadda uu ku qalin jebiyey 75% dhammaan maadooyinka oo dhan. Hadduu caafimaad yahay ama health science waxaa la dhaho 90% inuusan ka hooseynin. Wax u dhow waa noqon kartaa laakiin aad haddaa ugu hooseysid in ardayga la qaato waxyaabaha hoos u dhig ka hooseyso inuu ka soo baxdid round-ga koowaad adkeynaya ka mid tahay. So da'da iyo darajada mar walba way fiiriyaan marka adina inaad iska fiirisid waaye. Marka intaadan application-ka aadan apply gareyn maxaa lagaa rabaa? Kow inaa haysatid waxyaabaha lagaa rabo dhan documents-ka. Documents-ga maxaa muhiim ah? Waxaa muhiim ah sawir. Sawirka ha ahaado mid baasaboorka lagu dalbado kale biometric photo waxa aan dhahno. Ardayda qaar waxaa laga yaabaa baasaboor inay haysan. Baasaboor haddaa haysanin waxaad samayn kartaa national ID-ga aad isticmaali kartaa. National ID-ga waxaa kaloo muhiim ah high school certificate-ka iyo transcript-ga. Waxyaabo badan oo dadka weydiiyaan waxaa ka mid ah transcript ma laga rabaa. Transcript waa la iska rabaa. Document-yaalkaada haddii wax ka maqan yihiin waxaa laga wadaa shuruudihii ma ka soo bixin. So document-gaaga wax dhan ayaa ka maqnaanin. University-ga certificate-ka ardayda weli jaamacadda dhammeyn semester 7 oo kale ilaa semester 7 transcript-ga oo hadda semester 8 galaya. Transcript-ga waa ku apply gareyn kartaa. Waxa ugu muhiimsan recommendation-ka waa dadka qaar reference letter ay dhahaan dadna testimonial letter ay dhahaan. Macalinkaaga maamulka jaamacadda qofkuu doono ha ahaado qof adiga ku yaqaana wanaagaaga yaqaana arday noocee tahay qeexi kara ka soo qaado. Masterka ardayda waxyaabaha inta badan laga fiiriyo waxaa ka mid ah
proposalka markaa dhahayna buugga oo research ka sameyn doontid ama kan hadda ka sameysa ha noqdo ama mid ka sameyn doontid ha noqdo. kadibna isla page meeshaas waxaa ku jira letter of entity-ga oo ah motivation letter maxaa waxbarashadan u dalbanaysaa iyadana su'aalo markaa buuxinayna arki doonaa. ardayda qaar way shaqeeyaan hadday shaqeeyaan CV laga rabaa haddaadan shaqeynin internship-kaaga ku buuxin kartaa. kuwan waxyaabaha la iska rabo waa inaad buuxisid. waxyaabo waxaa jiro optional ah oo inaad ku guuleysatidna xoojinayo. waxaa ka mid ah volunteer activity ama social activity-ga aad sameysid. seminaaro haddaad ka qayb gashay. workshops haddaad ka qayb gashay oo haddaad certificate haysatid asagana sida loo buuxinaa waxaas oo dhan waa sameyn doonaa. waxaa kaloo jira haddaad luqad dheeraad ah taqaanid luqadda English-ka oo kale ardayda qaar jaamacada English ay rabaan TOEFL aa lagu xiriiriyaa. TOEFL ama IELTS haddaa haysanin oo English aa soo baratay macadkaa ka baratay shahaado ka qaado ku buuxi wax mushkilad ma laha. si kooban waxyaabaha lagaa rabo dhammaan markii documentieskaaga ku diyaarsana iska ilaalis waxaa ka mid ah photogaaga waxyaabaha inaad ka fiiriso lagaa rabo inay ahaato sawir masala gadaal aan wax dhan ku lahayn geed iyo waxaas inaysan ka muuqan koofi wiilasha inay xiraan yacni sawir toos ah backgroundkiis gadaal cadaan. waxaa kaloo muhiim ah testimonial-ka ama recommendation letter-ka dadka waxay sameeyaan ku socota to whom concern taas beddelkeeda waxaa ku isticmaali kartaa ku socota deeqda waxbarashada dalka Turkiga ama to Turkish scholarship marka macalinku qorayo inaad ka codsatid ama meel walba meeshaad ka qaadanaysid inaad weydiisatid. midda saddexaad iskaanka ama sawir haddaad ku qaadaysid documentieskaaga inuu clear ahaado oo la arki karo qof walba uu aqrin karo. yacni waxaa la aqrin karin haddaa meesha ku buuxisid maxay noqonaysaa wax meel kasoo qaad aan lahayn. marka dhammaan documentieskaaga wixii lagaa rabo waa ogtaa way kuu diyaarsan yihiin haddii kuu diyaarsaneenna sii diyaarso waqtiyaa haysataa laakiin maxaa la dhahaye ha sugaanin ilaa last minute si tartiib ah u buuxiso dhammaan. inaad rabtid buuxisid apply aa dhahaysaa apply markaa dhahdid meeshan email iyo password oo aad system ku gashid ma haysatid maadaama aad cusub tahay waa is register gareynaysaa register marka is register gareysid meeshan iyadana waxaa muhiim ah magaca warqadaada jaamacadda ama certificate-ka passport-kaaga warqadda dhalashada ay kugu qoran yihiin oo kale inaad isticmaashid fartana waa weyna naqanaysaa adi ma ka dhigaysid. jandarka waa buuxineynaa kadibna dhalashada taariikhdana waa tii aan idiin soo sheegay 30 sano haddaad ka yar tahay apply garee haddaad ka weyn tahayna ha apply gareynin. si example ani waxaa sameyneynaa si example bishaas ka dooro kadib nationality Somali way kuu soo baxaysaa. emailkaaga muhiim hadhow emailkan meesha systemka haddaa apply gareysa haddii lagu soo aqbalo haddii lagu soo qaado waa isticmaaleysaa. hoosa u soconeynaa meeshan waxaa dhahaysaa I'm not robot then approve it. mararka qaar wuxuu ku siinaa meeshan xarafo inaad gelisid aan hadda ma arkooyi waa ka soconeynaa save waa iska hubin kartaa waxaan sax ma u geliye hadday kaa qaldan yihiin marka emailka muhiim emailka marka email lagu soo diro meeshaasaa ka hubinaysaa wax magacyada meeshaas ka sixi kartaa. password wuxuu dhahay inaa adkaado waaye password adkaaduu rabaa so let's change it. save markaa dhahdid waa iska hubinaysaa magacaaga markuu sidan ku siiyo
haddii kaa qaldan wax ama wax rabtid meeshaan edit aa ku dhehaysaa ku laabanee isla meesha ku geynaa kadibna approve